السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها بدن رمضان الكريم هل كان نقد دعوان إنسان وجنل كعرض عاشر قف كيدن لها اللين وساحبكين عبد الله محمد عبدي كسو دواذا مركلة يا مقال أسوب مقال كان مانت وحان وهل دونا قيمها صلاة قاسة قيمها صلاة فجر كأما صلاة الصبح. دكتور محمد راتب النبوسلي أو الشيخ عالم ونرد شيء دلك سوريا أي برنامج كفهم كحضارة إسلامك وسوجي ديو وحاو مدى إسلامك كل وداغي فرين كوبا أو رياض يدنا يريهين لكن مقوين ميل فرنتابا نيسا وحاونا الشيخ فرين تيسا إساقو كهد ليو ويري سيدان wuxuu u malaynayaa midka salaada subax ka seexda inuu hurdada ka dhargi doono raaxo ku filanna uu heli doono laakiin miskiinku waxa uu moog yahay inta ay la eg tahay qulubta ku guulaysatay inay is hortaagaan daqiiqado aad u kooban allah subxaanahu wa tacaala haddaad tahay mid markuu doono seexdo markuu doonana soo tooso oo aan marnaba danka lahayn salaada waqtigeeda iyo maamuusideeda waxaad ogaataa inaad mar walba ku jirto xayndaabka walwalka iyo walbahaarka diktoorka waa uu dhaartay oo wuxuu yidhi wallaahi salaada waa raaxo iyo khayr adduun iyo mid aakhiro ibnu qayim waxa uu yidhi ما هليتid cid kaa jecel kaagana turid og allah subxaanahu wa tacaala oo haddii uu ogaan lahaa qofka sujuudsan raxmadda uu rabbigii ku daboolayo marka uu sujuudsan yahay marnaba madaxiisa kor uma qaadeen oo sujuudda ayuu daa'imi lahaa dadka fajarka ama salaada subax tukadaa waa koox alle uu khayr waafajiyey wejiyaalkooda waa iftiimayaan waqtigoodu waa uu barakaysan yahay haddaad kuwaa ka mid tahay allah subxaanahu wa tacaala fadligaa uga mahad celi haddii aadan ka mid ahayna rabbigaa weydiiso inuu kuwaa kugu daro maxaa ka qurux badan salaada fajarka faradkiisu wuxuu kaa yeelayaa in uu allah ku waardiyeeyo oo uu ku ilaalinayo micnuhu waa caymiska allah ayaad ku jirtaa salaada sunnada ee subaxii waxa ay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxa ku dhex jira oo dhan sheekhu waxa uu fasirayaa xadiiskii nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa allaha yeelee ee sheegayay in labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya ay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxa ku dhex jira quraanka salaada fajarka uu imaamku aqrinayaa waa quraan ay malaa'igtu goobjoog u tahay ugu dambeyntii diktoorka wuxuu yidhi walaalka qiimaha badanow qofka waxa uu la noolaado ayuu ku dhintaa qofkana waxa uu ku dhinta ayaa lala soo saaraa ilaahay hanaga dhigo kuwa khayrka ku dhinto laguna soo saaro inta ka horeysana waa saaxiibkiin cabdullaahi maxamed cabdi CMC iyo janalka curd caashaq oo idin leh ramadaan